السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا على عبد شكرية channel قد نقدر وانا سواتي building construction and design maanta hadduu ilaahay ogol yahay waxaan bilaabanaa cashirka qaybtiisa sideedaad waxaan soo barnay qaybo badan oo loodka qaabka load pattern-iga loodka ugu dhaco marka hadda maadaama marka hore aan soo samaysanay loodka iyo qaabka ugu dhaco hadda maanta waxaan u baahanahay isla loodkii inaan calculate kareyno hadda markaan u baahanahay loodka inaan calculate kareyno waa inaan template-kan yar furano template-kan ama excel-kan yar aan furano shaxdan yar ayaan markaa template-kan ayaan markaa wadaynaa maadaama template-kan aan rabno inaan kaga shaqeyno template-keeda markaan waxaan u baahanahay loadka on the slab of the axis ee koomato meesha maxaa la dhahaa AutoCAD-kayga intaa uu dhaco oo waa dhankee AutoCAD-kayga ayaan tegi AutoCAD-kayga on axis eeda qaybta eeda ah lambarkeeda labaad marka banaalka yar baan ka shaqeyn banaalkan ayaa markaa ii wada qoran kabacdi markaan aan ku laabto template-ka xaggan waxa ii qoran dee loadarka ku dhacaya wuxuu ahaa partition wall oo kale partition wall-ka thickness-kiis waxa weeyaan 0.15 0.15 kan mitirka waxaan ka keenay markaa slab-kayga AutoCAD-kayga oo waa intan yar inta yar weeyaan haddii aan soo qaato dimension-ka oon cabirto inta yar weeyaan inta yar thickness-ka partition wall-kayga marka waa inta yar 15 xagaasaan ka keenay 15 maadaama halka ka keenay waa inta uu yahay marka halkan marka hadiya jeer waxa kugu qoran partition wall waa 0.15 marka xaggan aad Excel-ka gashan xaggan density-ga waxa hadiya jeer waa cufnaanta ay leedahay maxaa la dhahaa jaajuurka ama HCB hadiya jeer waa 14 length-iska partition wall length-iskiis waa imisa halkan waxa igu qoran 1.8 oo lagu daray 2.15 maxay ka dhigan tahay waxa ka dhigan tahay length-ga waxa ka dhigan tahay inta aad partition wall-ka aad ku sameynayso dhanka x iyo dhanka y-da total-kooda isku dari doontaa oo markaan isku dara halkeen ka helayaa xaggan aan ku laaban I would say marka ileen waxaan u baahanahay marka inaan isku daro AutoCAD-kayga ayaan ku laaban AutoCAD-kayga markaan ku laabto dhankeeyo dhankee la raba in la isku daro dhankan fiir inta partition wall inta yar buu ku kooban yahay inta yar xaggan 1.8 weeyaan laakiin dhankaas oo dhan weeyaan marka 2.15 kan ayaa waxaan ku darayaa 1.8 kan kabacdi marka length-iska waxa ii soo baxaya banaalkan yar ee partition wall-ka ah ayaa ii soo baxaya maadaama isagu intaas ii soo baxayo halkan aan toos ugu laaban halkan markaan ku laabto marka length-iskayga waa inta halkan kale noqotay height in meter waxaan naqaanaa gurigeena marka hore aan design gareynaynay bilowgii hore 3 mitir buu ahaa 3 mitir ayaa waxaan ka jarayaa 0.15 waa thickness-ka dee slab bay waxa lagu dul sameeyay kabacdi intaas ay soo baxaysa area-dan waxay ka dhigan tahay yadna banaalka area-diisa guud halkan waxay ka dhigan tahay area halkan waa area-da aan u baahanahay marka isagana area-diisa oo meter square ah lagu waxeeyaa marka waxay ka dhigan tahay 0.25 lagu dhigto 2.15 waa inta banaalka inta banaalka ah weeyaan oo waa intee waxaad sameynaysaa halkan ilaa iyo halka dimension-ka ayaad qaadanaysaa marka from here ilaa iyo halkaas waa 3.25 kabacdi marka hadana halka iyo halka waa 2.15 marka labadana isku dari banaalkan intan inside-ka ileen banaalkan ayaan ka sheekeynayaa marka hadda intan slab-ka gudaha ka hore partition buu ahaa inta yar gudaha inta yar naqan laakiin hadda banaalka ayaan area-diisa rabaa ileen waxaan rabaa loadka ku dhacaya banaalkan qaabka uu yahay banaalka dhan loadka ku dhacaya ayaan u baahanahay maadaama u baahanahay loadka ka dhan ee ku dhacaya kabacdi marka halkan aan dul imanaya waa 3.25 lagu dhuftay 2.15 ka kabacdi marka area-dan ay soo baxday halkan marka hadiya jeer waxaan u baahanahay loadkaygu hadiya jeer waa point load maxaa keenay waxaan sameynayaa halkan ku dul dhufo inta shay isku dhaxsanay waa 0.15 oo mitir ku qoran 14 oo mitir cube ku qoran 3.95 oo mitir ku qoran 2.9 marka waa imisa mitir 1 2 3 mitir marka lagu dhufto 14 kan mitirkan hoostu yaalay way isla baxayaan kabacdi marka loadka kaliya waxa ku soo haraya la yiraahdo marka kilonewton ayaa intan ku soo baxaysa marka had iyo jeer maadaama u baahanahay slab-ku had iyo jeer wuxuu ugu dhacaa loadka kilonewton by meter square kiiba ayaa distribution load laga dhigaa distribution marka waxa ka dhigan tahay total load kan ee kilonewton-ka ku soo baxay ayaa waxaan u qaybin area-yadii banaalka kabacdi marka product-ga ay soo baxay waa intan marka 3.8 oo kilonewton meter square kiiba ayaa ku dhici doona qaybtaas marka waa qaybta slab-ka
qaybtan labaad hadaan gubo floor finishing marka waxyaalihi marmarkiiya wax weeyaan marka xagga waxa ku qoran floor finishing baa halkan igu qoran floor finishing thicknesskiisu 0.02 baa la qaatay terrasso iyo ceramic waxaana marka Ethiopian building code ka ayaa laga soo eegaa Ethiopian building code ka ayaad ka eegi halka waxa ku qoran 320 320 maaha waxaan iska qoray laakiin waa halkan marka Ethiopian building code ki ayaad fiirini marka xagga waxa kuugu qorani waa marmar markay tahay xaggan kalaay waxa aad ka haduu marmar aad dhigayso 720 hadaad ku kala dhigayso BVC waxaan oo dhan laakiin aan waxaan u baahanahay terracic pavement xagga 320 ka marka Ethiopian building code ka dhankan ayaan ka keenay marka waa Ethiopian building code oo oldigi waliba inta marka 320 kana halkaasan ka keenay marka waxaan sameeyay wax kala maana sameeynin distributor buu isaguna ugu dhacaa had iyo jeer uu kilonewton by meter square bay ugu dhacaan ka bacdi labadan shay baad isku dhufanaysaa labadan markaad isku dhufato de total marka xagan aan ku kor dhufto it should be waa productiga muxuu ku leeyahay E12 lagu dhuftay 13 waa labadan unde marka maadaama qaybtan joogo asan excel tahay marka waa isku dhufo wax kale oo saamaha cermiguna waa lamid xagan ba 0.25 ka dhigan 320 kuna waa density ama baaxada isku dhufo intana soo bix xaga waxa ku qoran defining categories waxay ka dhigan tahay marka aan waxa halkan iska doortay baan iska doortay oo sababtaan u doortay waxay tahay categories ka aan sharaxayo waxaan anu categories baan doortay maadaama waxaan design gareynayo residential building iska yahay marka caadi ba waxaan ugu laabanay isagana meeshii koodkii baan ugu laaban xagga waxa ku qoran categories table categories of building area marka A iyo B iyo C bay leedahay marka A waxa ku qoran area of domestic and residential activity room maadaama roomkaygu residential building houses rooms in hospitals wixii anu categories baan qaatay maadaama categories qaatay anu categories baan qaatay marka maadaama waxay gu residential adigu marka hadaad guri kala design garanaysa ama B baad qaadan ama C categories marka maxaan uga baahanahay categories marka horey baa hoos baan u socon marka categories baan qaatay categories markaan qaato categories waxa qoran general stair balonic saddexdan oo floor ah maadaama floor yihiin ka bacdi marka waxaan waa Ethiopian building code hore wuxuu lahaa marka hore 1.5 ilaa 2 ayaad qaadan kartaa category general kayga marka ka hore 1.5 ilaa buu laakiin hadda wuxuu leeyahay toos u qaado 2 waa new code ka stairka wuxuu lahaa ka hore 3 buu lahaa 3 baad qaadan kartaa buu Ethiopian building code ka hore oldiga 3 ku qoran waxaana hadda ku dul qoray 2 up to 4 afar ba hadda toos loo qaatay stairka balaanu kan isagana afar ba loo qaataa ka bacdi marka halkan aan ka keenay waxaan marka halkan maadaama define categories adigu tiri generalka waa kan stairka waa kan baloric marka tuuda oo halkii ku qoray afar tuwaatan afartan kala waa halkan marka xagga waxaan kaga baxaynaa baan dhigi karnaa loadkii ku dul dhacayay islaabka banaalka koobaad intan kaliya ayaad ku apply gareyn kartaa hadhow toole waxa wixii looga baahan yahay hadaan u gudbo loadka ku dhacayo on the beam loadka ku dul dhacaya beamka isaguna wuxuu noqon karaa on wall load maadaama on wall load niri isagu partition wall ma isagu waa wall load maadaama wall load yahay marka loadkii de marka beamku wuxuu noqon karaa beam gudaha ku jiro iyo beam xagga gidaarka xiga marka wall load maadaama waxaan uu yahay I will say xaggan marka ayar ba waxaan oranayaa xaggan waa wall load on beamka on axis comma 2 ku dhacaya externalkaygu waxaan dhigi halkan waa maxay thickness waa 0.2 thicknesska beamku waa 0.2 waa thicknesskiisa heta halkana in meterkiisu heightku wuxuu yahay 3 meter 3 meter waxaan ka jarayaa 0.3 gani muxuu ahaa waa depthigii aan soo samaystay aan ku soo samaystay beamkayga marka hadii aad itaabkaagi ku noqoto depthiga adaad divine tagtid wuxuu ahaa material properties section property baa isaga la dhahaa oo frame maadaama frame halkan fiiri beam banka shaqeynaya beamka waa maxay 250 times 300 oo tan marka waxay ka dhigan tahay de marka ayar baan marka saddex halkaasan ka keenay meel kale maanan ka keen marka ujeedada halka uga keenay ayaa inta marka 2.7 ka marka inta man ka jaray de depthigii baan ka jaray ilan depthiga ayaan dul dhigayaa halkana kilonewton per meter cubic kana waxay ka dhigan tahay isagu waxa weeyaan waa density-gii HCB ga lagu waxeynay distributor kan waxa ka dhigan tahay kan iyo kan isku dhufo productiga iyo kan maadaama had iyo jeer isagu beamka kilonewton per meter kiiba buu ugu dhici 0.2 2.7 iyo 14 halkan meter square kan labada meter baa la bixi
kabacdi 1 mitir per kilo newton per meter kiiba internal kan kale isaguna halkan ku qoran beamku waa 0.15 had iyo jeer 0.15 per thickness ka laga dhigaa 2.7 kuna waa isla sidii uun wax kale uu ku kala duwan yahay halkan kale kuma arko marka qaybtan banaalkan kaliya ayaan anu ka shaqeeyay laakiin kuwa kalena waa like it un kuwa kalena wax ay ku kala duwan yihiin ma jiraan marka kabacdi marka assigning-gii un baad odhan laakiin shaxdu iyadu saasay ku dhantahay load on x ka ku dhacay partition wall dhammaan shaxdu saasay kugu diyaarsan tahay shaxdan iska save garayso ka kalena limit haddaan imika aad u baahato inaad ka shaqayso access kale adiga ayaa intaasoo dhan ikhtiyaar iskale haddaad dooniyo aan u baahanahay inaad kan ka shaqayso haddaad rabto inaad kan ka shaqayso sidii oo kale un baad oranaysaa halkan aad cabiran baneelkaaga inta uu yahay kabacdi marka anu maadaama ka shaqeeyey a on axis 2ga adiguna a on axis b 3 d maadaama projectiga aad ka shaqaysanayso mid walba saasaad u calculate garayni marka qaybtaas iyadu sidaa ayay ku dhan tahay oo marka excelkaagu marka saan kugu diyaarsanaan marka wax kale oon u arko aanu ma jiro marka assigning load iyo qaabka kale looga wada shaqaysto dhammaan waa sida assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xagga ayuu inoogu joogi doonaa marka subscribe iyo share ta saar